بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkii meel walba joogtiin waa idin salaamay maanta waxaan rabaa inaan mowduuc ka hadlo mowduucaas oo fikirka wanaagsan iyo fikirka qaldan ama waxyaalaha bini'aadanka ka hor istaagayo inuu fikradiisa ka dhigo fikir saxsan waxaa jiro anaga dhan waxaa qabnaa cod gudaheena ka yeeraya ama wada sheekaysi gudaheena ka yeeraya yani qof walba waxyaabo oo nafsadiisa u sheegaa jiro ama positive ama negative labadaas midkay rabtaa ha noqoto marka waxay tahay yani qofka bini'aadanka marka ku dhasho ma jirto waxyaabo oo iska aaminsan yahay yani asoo nadiif ah oo qalbigiisa nadiif yahay oo waxba aqoonin oo dhasha saa la wada socono laakiin waxaa jiro qawaaniin ama bulsho ama biyo oo la kulmaayo oo siinayso waxyaabo badan oosan asaga aqoonin nasiibkiis yani haddoo la kulmo in la siiyo waxyaabo oo negative ah waxay noqonaysaa qofkii inuu asaga wixii negative iskula hadlo يعني وحدي لا برو مرة وقلدان تاعي هدي لا ده ولقى مهر مجاريسيد سو حسمين يسيد قلد وايه هرو صعد متيهد قف حناتهاي يعني وحيابها أصلاً لا ده هايو وحين نقنيسا وح أسجى سامين كله إلا أو جارو هير مركز دمبه وأسجى إسكوله هدلو يعني عد كي بنان كله جده هاي أسجى إسكول شيء كيسنايا إن أسجى هدلو نيجاتيف أو قادلو إسلوه وح ما قبسن كرتيد هوشان تبر مؤهيسيد qof xunaa tahay waa fool xun tahay meeshaadi ma aha weligaa heer ma gaaraysid heblo waa kaa fiican heblaaya kaa fiican yani wixii bii'ada ee siisay oo negative ka ahay oo wuxuu bilaabaa qofka bini'aadanka in asaga gudaha oo iskala hadlo marka meesha hadda oo qaladka weyn ka jira waxay tahay waxa markii adiga banaanka qof joogo kaala hadlaayo waa la dagaalami kartaa laakiin haddii wixii adiga aa qaadatid ee gudahaaga adiga iskala hadashid aaday u yara adag tahay in oo la dagaalantid sababtoo waxay kamid noqonayaan waxyaabaha ay aaminsan tahay oo gudaha ku dhex nool marka waxa laga yaabaa inaa marmar maqashid in la dhaho positive thinking wax la dhahaa jiro dhinac wanaagsan u fakar dhinac wanaagsan u sheeg yani isku qeex waxyaabaha wanaagsan inaad tahay waxyaabaha wanaagsan inaad tahay marka isku qeexaysidne waxa laga yaabaa in 2 bari ama 3 bari markii aad isku qeexdid wax yar ka bacdibo ee ka qaldanto ama ee ka noqoto in oo sheegi weysid sii wadi weysid wixii aad markaas rabtay inaad u sheegtid gudahaaga ama nafsadaada sababta marka aysan u soconaynin waxay tahay anaga markaa rabno yani in aad isku sheegtid wax qaldan muddo soo qaadatay sidaas si la mid ahne in aad wax fiican isku sheegtid wax loo baahan yahay waaye inaad ka mid dhigtid noloshaada yani nolol maalmeedka la kulmaysid noocyada kala duwan nolosha aad la kulmaysid xumaan samaan dad cusub dadkii hore dadkaagi kulli yani la kulanka oo bii'adaas cusub iyo dadkaas cusub aad la kulmaysid waa inaad ka mid dhigtaa waxyaabaha wanaagsan ama positive ka aad isku la hadlaysid guud ahaantaada yani mar walba inaad adiga u aragtid waxa inay positive yihiin yani guud ahaantaada deeply inaad ka dhigtid waxaan waa sameyn kartaa waxaan qalad ma ahayn saan yani inaad u fiirisid nolosha sida u dhaceyso dhanka wanaagsan markaas waxay bilaabanaysaa inay niyadaadi noqoto nadiif ama aad nolosha ku wadatid si saafi ah ama nadiif ah laakiin ma ahan in wax yarkii aad sheegtid ama halkii wax aad sheegtid ee isla markii kaaga dhigayso positive inaad isku bedeshid يعني wax badan xumaan isku soo sheegaysay 2 bari wax samaan isku sheegtay ma aha micnaheedu isbedelayso waxay u baahan tahay inaad noloshaada ka mid dhigtid inaad u fasaxid noloshaada ay ku dhex jirto inaad ka dhigtid dhanka wanaagsan inay ahaato wax ka mid ah neefsashada aad neefsanaysid waxaan rajeynayaa inaad wax iga fahamteen maanta intaas idin la wadaagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh